Soo dhawaada dhammaan saaxiibayaal. Mowduuca muuqaalkan waxaa kugula wadaagi doonaa shaxdana VAB-da ciyaaraha la ciyaari doono Britolo subaxii kuwa oo dabcan laga ciyaari doono horyaalka MLS-ka maadaama uu yahay horyaalka kaliya ee waqti xaadirkan ama seasonka inta xiliyadan lagu jiro la ciyaaro. Waxaa ka sameyn doonaa shax VAB ah ama ciyaar isku dhaf ah maadaama horyaalkan uu yahay mid ka hadda socdo walibana horyaal uu yahay. Ciyaaraha Friendly League waxaa isku dayi doonaa inaan ka dhacno inta horyaalada aan heli karno. Tusaale kale China oo kale horyaalkooda la dheeyaa sidoo kale waxaa la dheeyaa MLS-ka. Haddii ciyaaraha ay jiraan waxaa isku dayi doonaa inaan ciyaar ka soo sameyno. Haddii ciyaaraha la waayo ciyaaraha jira inaan ciyaar ka soo sameyno. Marka haddii doorashada ku ridaan channel-ka waxaa xismada ka codsan inaad channel subscribe saarto, muuqaalkan aad like saarto, saaxiibadan aad la wadaagto. Sababaha MLS-ka iyo dabcan China horyaalkooda ciyaaraha uga soo sameynayna waxay tahay dabcan ciyaaraha friendly match-ka dabcan la iskuma haleyn karo oo aad iyo aad dabcan muxuu ahaytaa wax aad filayn uga dhici kartaa. Marka ciyaaraha MLS-ka haddii ay helno iyo ciyaaraha China waa soo sameyn doonaa. Game-kan ugu horeeya wuxuu noqon doonaa New England iyo dabcan New York RB. Game-kan waa kulan ka tirsan MLS-ka dabcan 99% waxaa leenahay waa ay badin kartaa New York RB. New York RB dabcan ka badin karto New England. Game-kan labaad waa Minnesota United iyo Dallas. Minnesota United iyo Dallas waxaa leenahay Minnesota United oo home ah double chance siinayna. Dallas dabcan waa laga badin karaa ama bridge heli kartaa waay. Minnesota United double chance ama bridge heli karto ama badis ama bridge heli karto. Portland Timbers ST Louis City waxaa leenahay labadan kooxood midkooda badin karo. Portland Timbers ama ST Louis City labada midkooda badin karo. Game-kan afraad wuxuu noqon doonaa Seattle Sounders iyo dabcan Sporting KC. Labadan kooxood waxaa dhici karnaa Seattle Sounders double chance waa dhici kartaa laakiin waxaa doorbideena in labada kooxood midkood uu badin karo. Sporting KC ama Seattle Sound labada kooxood midkooda badin karo. Marka total shaxdeen waxay noqonaysaa New England iyo New York RB oo dabcan aan ku saadalnay in New York RB ay badin karto. Minnesota United iyo Dallas oo dabcan aan ku saadalnay in Minnesota United ay heli karto badis ama bridge. Portland Timbers iyo dabcan ST Louis City oo aan ku saadalnay in labada kooxood midkood badin karo iyo Sporting KC iyo Seattle Sounders oo dabcan aan ku saadalnay in labada kooxood midkood uu badin karo. Marka haddii tahay doorashada ku channel-ka waxaa farajeenaya inaad wax badan ka fahamtay sidoo kalena aad ka faa'iideysan doonto. Haddii aad aragto ciyaarahan kuwa aan soconayn wax ka bedeli kartaa waxaan ku darsan kartaa si aad natiijo ku qanacsantahay kugu soo baxdo. Marka haddii tahay doorashada ku channel-ka waxaa xismada ka codsan inaad channel subscribe saarto, muuqaalkan aad like saarto, saaxiibadan aad la wadaagto. Waan ku mahadsantahay doorashada muuqaalkan.